Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ka furtay shirweyne ku saabsan xaaladda Somaliland 27 sano kadib markii ay ku dhawaaqday in ay gooni isu taagtay iyo caqabadaha horyaala. Shirkan oo Somaliland ku martiqaaday ergooyin iyo wafuud dabadda ka yimid ayaa hadafku u yahay in Somaliland ay saaxiibadeeda caalamka tusto horumarka ay ku tallaabsatay. Wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi ka qayb galay warbixintaana noo soo diray. shirweynahan oo soconaya muddo 2 maalmood ah waxaa ka qayb galay wafdiye ka kala socdo 28 dal oo ka kala yimid dunida kuwaas oo yimid ka qaybgalka shirkan lagaga hadlayay Somaliland 27 sano kadib wixii uu qabsoomay iyo caqabadaha horyaalay ama la saadaalin karo waxaana furay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gaarimaha dibadda dhigta Saacad Cali Shire ayaa VOA uga warramay ujeedada shirkan. shirkan waa shir horta caalami ah waa shirkii ugu horeeyay oo noociisa kala oo halkan laga dhigo ujeedadiisu waxay ahayd inaan ku marti qaadno halkan ay yimaadaan saaxiibadeena caalamka oo dhan si ay nooga qayb galaan bal dib u eegis wixii noo qabsoomay iyo wixii noo qabsoomay waayaba iyo sidii halkan looga saan baqaadi lahaa ilaa imka waxa yimid ilaa 28 dal ayaa ka soo qayb galay shirka oo qaaradda Afrika qaaradda Yurub qaaradda Mareykanka intaba isugu jira Somaliland marka ugu horeysa waa wadan xor ah oo gooni u taagan oo xaq u leh oo soo maray marxalado badan oo kala duwan oo adag tusaalaan haddaan hal tusaalaan soo qaato 1999kii wax iskuulooyin noo taagnaa oo runtii iskuul lagu magacaabay ma aanay jirin meel yaryar baa jiro carruurta wax loogu dhigi jiray laakiin ma aanay jirin wax iskuul lagu magacaabo runtii laakiin sanadkiina soo dhaafay 2016kii xogta aan ka helay wasaaradda tacliinta waxa weeye in iskuulada ay ka badan yihiin 1100 xilligaas aanay dhiganayeen in ka badan 250,000 oo arday. inta badan arrimaha Somaliland iyo aqoonsigeeda in badan baa ka hadashaan oo laga hadlay meel kala duwan baa lagu qabtaa Brussels Belgium waa lagu qabtay London waa lagu qabtay shirkan muxuu shirka hore kaga duwan yahay shirkan wuxuu kaga duwan yahay dadkii aynu asxaabta ahayn ee uga warrami jiray Somaliland imika uga warramayna iyaga bandhooda ku arkaya waniga arkaanba waxaa shirkaasi ka hadlay madaxweynaha Somaliland oo ku dheeraaday sooyaalkii taariikheed ee halganadii gumeysidiidka ahaa iyo nabadeyntii ka dambeysay ee dib u dhiska Somaliland mas'uuliyiinta xisbada mucaaradka ee ucdiya wadani aqoon-yahano iyo mas'uuliyiin ka kala socda dawladaha Djibouti iyo Kenya iyo marti sharaf kale ayaa iyana halkaasi ka hadlay waxaana dhamaantood tilmaameen waxyaabihii uu qabsoomay Somaliland oo ay sheegeen inay ogsoon yihiin Afrikana u baahan tahay inay ku dayato sidii hadalka u yiraahdeen qaarkood. Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa.